وحرجيني إن نقدان قوة واحتر يسبدل كينا سيدا يقول إنه الصومالي لأنه شوي كيود بيجو كي يقول ديجان كقصة بحي وحي هاي دليل ربع كيلو سجاشن هذا دركتهم ما يرد صور بحي قبلنا لا أول لي هذين قطوع قبل الصومالي لأن اللي يرد وكامل يسيقول لها ديجان دليل يا هاي هذه دوفاتي دليل يرد الجارة ديجو بنقول سمي كراهنا دل كنشر ملكو حس بيجي ده حاكم كي كل مية أي ما تعرفنا صدق دليل يرد هو متليه وأنا أقول سويتي دليل يرد أنا أقول هذا يأفك أورك صحفيين الصومالي ده يكونوا دل كنشر ملكا أو لو ما قعدوا سيشوك وحنمر كوباد يمر بعد يمر صدق حقهم بليين يا دليل يرد ولا هاي هدف كنا السياسة دي هاي يقولوا نقطة قوة واحترنا ودليل يرد كلنا يكون ضيدان أنا أقول رجينا أنت حسبية كلنا في أفرتك وين بقى ثلاثة يقولوا وين waxaan markaas hadii aan laba kelmadood ka yiraahdo ururka saxafiyiinta Soomaalida waxaan aasaasnay sanadii 2011 waxaana lagu aasaasay magaalada Schweinfurt oo ku taala dalka Jarmalka gaar ahaan Bavaria ama Weimar waxaan ku midoobay saxafiyiinta Soomaalida ee dalka Jarmalka degan waxaan la bixin magaca Somali Excel Journalists Organization dadaallo fara badan uu sameeyay wax badan uu qabtay taariikhda markii uu horeysay ururkaygu waxa uu ku guuleystay in Jarmalka laga daawado adduunka dhowr iyo 30 sanadood ama 40 sanadood oo Soomaalidu ay ku nooleen dalka Jarmalka lama arki jirin dadka Soomaalida xafladaha ay dhiganayaan dabaaldeg dad sharaf iyo ciis iyo karaamo leh ku nool dalka Jarmalka oo Soomaaliya ha ka soo jeedeen shanta Soomaaliyeed meesha ay dooraanba laakiin anagu ka si joog ahaan waxaan ay ku hirgeliyay in Jarmalku uu noqdo wadamada ugu loogu warkay si aad u muujisaan cudurda ama taageerada loo haystaan xisbigan inagoo Ameeriko imikii wixii ka dambeeyay halka ka sii wadi doona oo aan caawa noqon doonin habeenkii ugu horeysay ugu dambeysay ee shirar fara badan oo kale ama xaflado kale aynu qabsan doono haddii ay beedmo waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo xafladan inagala qayb galay telefoon kaga qayb galay oo isaguna inooga warbixiyey xaaladda dalka uu marayo iyo horumarka uu gaadhay iyo waxyaabaha uu hiigsanayay waxyaabaha uu ku tallaabsaday iyo madaxweynaheena oo joogay waqti xaadirkan waddanka Hargeysa jooga oo dhawaan safar ku tagay dalka Ingiriiska waxyaabo badan ay ka wada hadleen oo imika hawlaha xiriirka Soomaaliland iyo Ingiriisku si fiican u marayo marka intaa ka baxo waxaan waxay ka taaban doonaa horumarka ballaaran ee xisbiga kulmiye uu sameeyay labadii sano iyo wixii la jiray uu talada waddanka gacanta ku hayay sidii wada ogsoonahay doorashadii ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 26 Juun laba sano ka hor xisbiga kulmiye wuxuu aqlabiyad 100% ku guuleystay doorashada uu kaga guuleystay 100% marka la isu geeyo labada xisbiye kale ee la tartamay markaa xisbiga kulmiye kuma helin majority inta ay codka ku helay kuma kasban dhayal iyo dadaal dheeraad oo kasbaday iyo dadka xisbiga ku jira oo karaamo iyo sharaf ka mudan bulshooyinka reer Soomaaliland ayuu ku gaaray sidaa daraadeed waxaan oran karnaa waqtiga ama laba sano ay markaa imka waddanka maamulayay xisbiga kulmiye ee xukuumadda haatan taagan ka soo jeedo horumar aad u weyn ayuu xisbiga ku tallaabsaday sidaa daraadeed waxaa lagu farxaa horumarada aad ku ballaaran ee xisbigu gaadhay inagoo imkana horumarada uu xisbigu gaadhay qaar lamida ka samayn doona qaaradda Yurub gaar ahaan Central Europe oo si fiican u hawlo socdaan waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay dadaalkaas
وحسب وضع يديرنا فربنا كسوق الجشي حفلته وضعنا إنه يلاقي يلوق ولايه إن شاء الله. أمر من الناس. waxaan siirada barbardhigaya dhinaca dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha kaliya oo sababtaas barbardhigaya isla xakamka udub markii uu tirada hayay 7 sano uu tirada hayay waxaan oran karaa muu sameyn ama kumuu dadaalin kobaca dhaqaalaha muu hirgelin ama muu hana qaadsiin inay soo xirooto cashuur fara badan inay soo xirooto dakhli fara badan may sameyn yani waxaynu naqaanaa xukum markuu xisbi wadanka qabsado waxaynu naqaanaa inuu sameeyo harumar badan isbedel badan xisbi xaakimka udub waxaan oran karaa meelo badan oo laga dhaleeyay ayaa jiray sida dhaqaalaha waxbarashada amniga oo aan oran karo iyada lafteedu wax badan baa ka dhinaa hase ahaatee madaxweyne daahir yaala kaay markaan ammaantiisa in la sheegay isaga laftiisu wuxuu mutaystay ama uu billad aan ku siin karaa madaxweyne daahir yaala kaay wuxuu ahaa madaxweyne dimuqraadiyiinta aynu maanta ku faano inteeda badan fuliyay iyadoo si xor ugu wareejiyay xukuumadda haatan talada haysa madaxweyne Siilaayo oo lagama hadlaqayna haddana naad isba xaakimka kulmiye xisbiga udub wuxuu xisbiin badan soo jiray wuxuu xisbi haddii aan u imaado xisbi xaakimkan maanta talada haya ee kulmiye labadaas sano iyo barkaa wuxuu qabtay waxaan dowlado waaweyn xataa qaban waxaas wuxuu qabtay miisaaniyadda waddanka waxaan ugu nimin haddaanu nahay xisbi xaakimka kulmiye boqolkiiba sanadkii ugu horeysa aanu qabsanay waxay miisaaniyadda ahayd boqolkiiba 50 maanta miisaaniyaddu waxay maraysaa boqolkiiba 4 madaxweyne Siilaayo iyo xubnaha kamidii xubnaha wasiirada xisbi xaakimka kulmiye kamidii waxa jeebadooda kala bay soo baxeen kaliya waxay u habeeyeen u tashiileen u maskaxayeen in badan u soo jeedeen sida loo ku soo xiran lahayd dakhli aad iyo aad u fara badan waxaan ku guuleysanay inaan soo xirayno dakhli fara badan waana laga mahadnaqayaa madaxweynaha haatan talada haya iyadoo madaxweyne Siilaayo ama wakiilkii xusbigii urur siyaasadeedkii rays ku biiray xisbi xaakimka kulmiye waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha iyaga xasan gafaadhi iyo kabinetkiisii loo hogaaminayay dhammaan iyo weliba ururka siyaasadeedka kale dalsan ismaaciiliya hadda waxaanu nahay xisbi xaakim sidaa ogtihiinna dowladeena xukunka dowladeena xisbiga hogaaminaya kulmiye waxaa ogtihiin in uu aad iyo aad wadanka uu u bedelay hadday noqoto xag society hadday noqoto xag bulsho hadday noqoto xag dhaqaale dhammaanteed oo rugcadaa siyaasi ah uu hogaaminayo mid dabadeed iyo mid gudeedba wataana ugu mahadnaqaya boqolkiiba boqol waxaan leeyahay xafladan waa xafladii ugu horeysay xisbi xaakimka ama kulmiye ee Germany lagu qabto halkaas ayaynu kasii ambaqaadi doonaa haddii la hayaado oo aynu kasii wadi doonaa mid aynu wadankii ku caawino iyo mid aynu halkan wax kaga qabsanaba ama aynu kaga qayb galno haddaynu nahay urur xisbiga madaxdiisa Germany. عليكم dhammaantiin oo salaamadiis markuu horeysa halkan waxaan ka salaamaynaa dhammaan dadkii isku soo abaabulay xafladan gaar ahaan dumarka oo hawshoodii kasoo si wanaagsan uga soo baxay aad baad mahadsantiin talabaad waxaan halkan mahad ugu celinayaa gudoomiyaha ururka ee qaaradda Yurub Axmed aad buu u salaamay isaguna anoo waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada la yiraahdo maxay Berkheim iyo ereydeen mushkilaad baax dhamaantoodba waxaan sheegay xisbiga kulmiye ee xukunka imika haya inuu maxay ahayd waxyaalo badan oo qabtay way jiraan waxyaalo aan qabtay inuu ma la dhamayn karo wixii oo dhan qof dhamayn kara ma jiro waxa weeye in sabir loo yeesho oo codcodaynta laga daayo xisbiga qolooyinka meelaha ka hadlaya ee shacbiga kicinaya
waxyaalahaas oo dhan la joojiyo ayaan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu اوكي هذا ما تسيء احمد هذا الراديو كل ما لك على شيء كان صوره weli shahaadooyinkeeni fare kama qodna dhalinyarada iyo ama ragga iyo haweenka aan halka shahaadada ku guddoonsiinayna waxa weeye dhammaan xubnaha xisbi xaakimka kulmiyada waddanka Jarmalka xaqiiqiyan waa dadkii soo abaabulay kulankan caawa waa dad sharaf weyn naga mudan waa dad aan u garanay inay shahaadooyinkan iyo wax ka badan ba u qalmaan haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa Mahdi Ibrahim falyatafadal Mahdi waddankan Jarmalka waa Maxamuud Maxamed Faarax oo xaqiiqiyan ahaa isku soo dibradaha iyo soo abaabulaha xafladeena quruxda badan caawa inay qabsoonto aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa Maxamuud hawlkarnimadaada iyo xilkasnimada aad si saartay shahaadada